kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim. Galab wanaagsan daawadayaal. Maanta waa maalin Jimcaha, bisha Maajana ay tahay 16. waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan idinla socodsiina anigoo Maxamuud Xasan. Haatan kusoo dhowaada wararkii ilaalada xuduudaha oo dad xidhxidhay, howlgallo ku saabsan socdaalka, maalgelin la jaray iyo weliba dhibaatooyin dhaqaale. Taasi waxaa wararkii oo kooban. Haatanna kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan. Ilaalada xuduudaha oo dad xidhxidhay, qareenno ayaa waxay qayladhaan ka soo saareen. Waxay ku sheegeen in soo galootiga Maine si xoogle loo ugaarsanayo. Qareennadu waxay yidhaahdeen wakiilada ilaalada xuduuduhu waxay xirayaan dad haysta oggolaanshaha shaqada oo saxa oo aan lahayn wax dembi ah, iyo kuwo weliba raacaya dariiqooyinka sharciga rasmiga ah ee deganaanshaha lagu heli lahaa. Mid ka mid a qareennada oo fadhigiisu yahay Rhode Island ayaa wuxuu sheegay in mid ka mid a macaamiishiisa uu hadda sugayo masaafurin kadib markii lagu xidhay Maine horaantii sanadkan, inkastoo ninkaasi haystay ama qofkaasi haystay oggolaansho shaqo oo uusan lahayn wax dembiya. Haddana waxa uu ku talinayaa in macaamiishiisu ayna u safrin gobolka Maine. Afhayeenka ilaalada xuduudaha kama uusan jawaabin markii la weydiiyey in arrinta iyada wax faallaha ka bixiyo. Se ahaatee, bayaan ay soo saartay horaantii sanadkan bishan idhaahda ayaa hay-addu waxay ku sheegtay inay xidhay ilaa iyo 39 qof ku xidhay gobolka Maine muddo 10 maalmood gudahooda. Howlgallo ku saabsan socdaalka. Hogaamiyaasha la doortay ee magaalada Wells ayaa waxay todobaadkii hore dhegaysteen markhaati furro qiiro leh oo ay bixiyeen dad deegaankaas ka tirsan oo ku saabsanaa go'aanka waaxda bilayska ee magaaladaasi ay la gashay hay-adda fulinta socdaallada iyo dhaqangelinta kastamada. Wells waa waaxda keliya ee bilays ee gobolka Maine, iyadoo heshiiska barnaamijkan oo loo yaqaano 287 la gashay, kaas oo siinaya saraakiisha boolisku inay fuliyaan qayb ka mid a xeerarka federaalka ah ee ku saabsan arrimaha socdaalka. Haddaba, qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka ayaa waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin in iskaashigan lala yeeshay ICE oo ah hay-ad iyadu safka hore kaga jirta qabqabashada dadka soo galootiga ee madaxweyne Donald Trump oo ku baaqay inay dhaawici karto sumcadda magaalada oo ay markaasna cabsi gelin karto dadweynaha deggan ee soo galootiga ah. Qaar kale ayaa iyagu waxay sheegeen inay ku kalsoon yihiin in booliskoodu ay u tahay arrintani fursad tababar, islamarkaana ay aaminsan yihiin in boolisku aysan ku tagrifali doonin wax alla wixii awooda ee cusub ee la siiyo. Guddiga magaaladu ma aysan sheegin inay arrintan iyada wax tallaabo ah ka qaadi doonaan iyo in kale. Maalgelin la gooyey. Maamulka madaxweyne Trump ayaa wuxuu joojiyey lacag $35 milyan ahayd oo loogu talagalay badbaadada dijitaalka iyo weliba barnaamijyo akhris qoraal oo gobolka Maine ah. Maamulka Maine Connectivity Authority ayaa waxay sheegeen in joojintani ay timid iyadoo ururada gobolka oo dhan ay u diyaar garoobeen inay hirgeliyaan barnaamijyo ay federaalku maalgelinayeen si kor loogu qaado caafimaadka lagu bixiyo telefoonka, helitaanka aaladaha iyo wadaagga xogta dowladda hoose iyo weliba waxyaalo kale oo markaa la qorsheynayay muddo 2 sano ah. Kooxdu waxay sheegtay in barnaamijyadu ay u adeegi lahaayeen ilaa iyo 130,000 oo qof oo reer Maine ah. Maalgelintani waxay qayb ka ahayd ku dhowaad $3 bilyan oo loogu talagalay xeerka federaalka ee lagu magacaabay Digital Equity Act ama sinaanta dijitaalka, oo qayb ka ahaa sharciga kaabayaasha dhaqaalaha ee madaxweyne Joe Biden uu saxeexay sanadkii 2021. Qoraal uu haddaba soo dhigay baraha bulshada ayaa madaxweyne Donald Trump wuxuu ku sheegay in sharcigan sinaanta dijitaalku uu yahay sharci cusuriya oo ka soo horjeeda xeerka waddanka. Dhibaatooyin dhaqaale. Ku dhowaad 30% qoysaska Maine waxa ay la rafaadsan yihiin kharashaadka aasaasiga ah sida guriyeynta, daryeelka carruurta, cuntada iyo weliba daryeelka caafimaadka, sida ay sheegtay warbixin cusub oo ka soo baxday United Way of Southern Maine. Maine, qoys ka kooban haddaba 4 oo leh 2 qof oo waaweyn oo shaqeeya waxay u baahanayaan baa layidhi $91,000 si ay u daboolaan
baahidooda nolosha ee asaasiga ah sanadka 2023. haddaba cabirkani waxa uu tilmaamayaa in celceliska dakhliga uu qoysku u baahan yahay si uu u buuxiyo kharashaadka asaasiga ah sida guryaha, cuntada, daryeelka caafimaadka, gaadiidka iyo daryeelka carruurtu inuu yahay $91,000. korarka kirada iyo guryeynta ayaa wuxuu yahay mid ka mid a kuwa ugu culus ama ugu badan inta badan qoysaska Maine ay la hardamayaan sida lagu sheegay warbixintan. Daawadayaal, halkaad nagala socoteen waa Maine Public News Connect. intaas iyo sarag dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. waad mahadsantihiin. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Koo iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan isu soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wadajir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ogsoonahay in lahaanshaha guryuhu ay yihiin furaha horumarka. barnaamijkayaga iibsiga guriga ugu horeeya waxa uu leeyahay deyn dulsaar hooseeya leh iyo kaalmo lacagta horumariska ah ee guryaha qolalka badan leh. faahfaahin dheeraada ka ogow mainehousing.org. waxa aad isbarbardhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Maine Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir maine.gov/apprenticeship.